kulanti waxaan wanaagsan qiyaarta naga daawataa janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jira labadan ee janaan hadaan kale waxa idin kugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga qoraalmaha koonfurta ee Bollywoodka ee la xiriira xanta jilaayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada teatrada saaran ku goosgoosadii heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kale asdhan la bixis way leeyihiin oo la wadaagi karteen daawadaashana ku taxambarta tusmada filmada soo kale barta kale ee ilayska xogaha meel baa joogtaan hawada waxa idin kale maalin wanaagsan warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa Akshay Kumar miya markaan Salman Khan kala tashtay in filimkiisa Premium Jyotirmyan in eed soo socota 2024 teatrada la saaro rubac hore ee sanadka soo socota 2024 filmada ugu xiisaha badan waxaa kamid ah filmka Premium Jyotirmyan kaas oo hogaamiye Keen Akshay Kumar iyo Sokol Taaga Shroff waxay yihiin film ay kula midoobeen film soo saaraha Ali Abbas Zafar kaas oo film balan qaada inuu noqdo film action u dhameystiran kaas oo daawadaashan ay ka heli doonaan waxayna meeshanteeda ku dhawaaqeen sanadan in ay markaan ay diyaar u yihiin in ay iida filmkooda ay la imaadaan waxaana alaaba Salman Khan filmadiisa ay yihiin kuwa maalmaha iida la daawado waxay wararka sidoo kale xanta ay sheegayaan in Salman Khan film budget weyn lagu maalgelinayo uu kula midoobay Karan Johar taasoo laga yaabo in ay soo socto teatrada la saaro asaata arintaas ayaa weli si rasmi ah loo xaqiijin filmka budget weyn ku baxay ee Premium Jyotirmyan ayaa wuxuu kala cadeystay koor intaan teatrada loo balan qaadin ay soo socto in ay la hadleen xidiga Salman Khan kaas oo in film uu ma doono in kalaba waxaana la sheegay in ay qolada filmka gaar ahaan ninka saaxiibka dhow yihiin Ali Abbas Zafar uu Salman Khan u tagay arintaasina kala hadlay waxaana Salman Khan uu yahay mid xushmad weyn u ahaa Akshay Kumar soo kale yihiin asxaab isku dhow waxaanu sheegay inuu faraxsan yahay in Ali Abbas Zafar uu iida film la imaan doono waxaan soo kale sheegay inuusan film markaan u diyaarsaneyn kaas oo uusan jirin film loo daawan doono wuxuu rabaa inuu sheegay in labadii saaxiibood ee Ali Abbas Zafar iyo Akshay Kumar inay madadaaleen dadka iid soo socotay 2024 Salman Khan ayaa wuxuu yahay mid alaaba xitaa xayeysiin u sameeya filmada iida badana la daawado waxa ugu dambeeyay saaxiibkiisa Ajay Devgan filmkiisa iida la daawaday 2022 ee Ajay Devgan filmkiisa Run 34 kaas oo xidig waxayeysiin kula sameeyay waxaana sidoo kale uu go'aansaday inuu filmkaas xidigaas u kala shaqeeyo soo kale 2013 ee markii Rohit Shetty iyo Shahrukh Khan Deepika Padukone ee la imaadeen filmka Chennai Express kaas oo maalin iida la daawaday Salman Khan filmkiisa ugu dambeeyay ila daawado waxa filmka kasii kajan kaas oo wacdal aan ka dhigin filmkaas waa film reer koonfur kaas oo kala hor u sameeyay xidiga Akshay Kumar filmkaasna waxa la fiiram Salman Khan wali wuxuu munaaqashayn ka sameeyay mashruucooda markaan uu ku dhaqaaq lahayd ahla barnaamijkii Shaadi kaas oo Suraj Barjaji uu leeyahay ama film kale taageer Fisbatan kaas loo arkay inuu midka ugu hor shaqada ka bilaabo lahaa wali oo soo go'aan u gaarin xidigana markaan waxa uu diyaarsan asoo ku sugan Mad Island ama jasiiradda Mad kaas oo Shahrukh Khan isku sugayn halkaas kaas oo duubaan jadwalkooda filmka taageer 3 kaas oo la daawan doono Diwaaliga sanadkan waxaana directorka filmkaas Manish Sharma katinka Iman Hashim ayaa filmkaasi xidigan kala soo muuqan doonaan waxa daawada dhinaca kale ayaa waxaan isla eegi doonaa xidiga Ajay Devgan iyo soo xidiga kale Arma Dhawan ayaa waxay ku midoobeen film ku saabsan arrimaha khiyaanada dabiiciga ah kaas oo director ka yahay Vikash Bahal Bollywoodka ayaa waxay markaan indhaha ku hayaan filmada xiga ee ku midoobdan Ajay Devgan iyo soo Arma Dhawan kaas markii uu horay ku midoobdan film arrimaha khiyaanada dabiiciga ku saabsan kaas oo director ka yahay Vikash Bahal waxaana soo kale uu kamid ah filmkan wuxuuna filmkan xiisaha leh aan weli magac loo bixin asaata waxa soo saara ka ah Panorama Studio soo kale Ajay Devgan Films Vikash Bahal ayaa wuxuu yahay directorada ugu caansan Hindiya qaybka asagoo soo kale ku guuleystay National Award wuxuuna ku qaatay filmka Queen kaas oo soo kale uu yahay director dhameystiran filmadiisa aad waxay yihiin filmo guuleysta waxaana soo kale ma dhafan oo xaqiijiyay Times inuu qayb ka yahay filmka oo Ajay kula midoobdan wuxuu sheegay waxaan film sameeyay Ajay Devgan waxaana directorka sheegay Vikash Bahal labadu waxay tahay uu sheegay markii ugu horeysay aan la shaqeeyo waxaan aad u rajeynayaa uu soo kale aan rabaa in aan la shaqeeyo Ajay Devgan waxaana soo kale uu yahay uu sheegay xidig ugu dambeeya ee ugu sareeya ee aan heesana ayuu sheegay xidigan intaas wuxuu siraaciyay in doorkiisa oo ka hadlay wuxuu sheegay in weli shaqada ay socoto asaatay markaan uusan ka hadli karin doorkiisa iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay
markay soo baxeen wararka wada shaqeynta Ajay Devgan isagoo arrimaha dhafan ayaa waxay ka dhigtay mid taageerayaasha aad u xiiseeyaan. Ajay Devgan wuxuu yahay jilaa caan ka ah Hindiya kaasoo door walba kasoo muuqan kara, waxaana bandhigyadiisa alaaban yihiin kuwo filmadiisa action argudasho la yimaado. arrimaha dhafan dhinaca kale wuxuu yahay xidig door walba sameyn kara oo versatile actor ah kaasoo Hindiya ay haystaan. filimkan ayaa waxaa la sheegay in shaqadiisa ay bilaaban doonto June, taas oo soo kor lagu wado in filimka shaqadiisa halkaas ay ka bilaabato. waxaana laga filanayaa in filmadan lagu duubo Mumbai, Mysore iyo sidoo kale London, kuwaas oo filimkaasi loo sameyn doono miisaan culus. filimkan ayaa imaanaya kadib guusha filimka Drishyam 2 kaas oo taxana filimkaasi ah. filimkaas waa film reer koonfur. Ajay Devgan filimkiisa ugu dambeeyay lagu arko filimka wuxuu ahaa Bola, kaas oo ku saabsan arrimaha argudashada, inkastoo uusan wacdar ka dhigin filimkan qaybaha tiyaatarada saatee waa filim guul dhexaad ah gaaray. dhinaca kale waxaan soo leegi doonaa jilaaga Mammootty ayaa markaan wuxuu ku bilaabay duubis filimkiisa ku saabsan arrimaha argudashada iyo dambida ee Bazooka. Superstar Mammootty ayaa sanadkan waxay u ahayd sanad u weyn kadib markii filmadiisa ay wacdar ka dhigeen qaybaha tiyaatarada. xidigan ayaa markaan wuxuu shaqeyn ku bilaabay filimkii soo socda ee arrimaha argudasho ku saabsan ee Bazooka. filimkaas ayaa wuxuu duubis kaga bilaabay degmadiisa ee Ernakulam. filimkan ayaa waxaa ka directorka cusub ee Dino Dennis, kaas oo ah wiilka oo dhalay halyeyga qoraaga filmada ee Color Dennis, kuwaas oo xidiga Mammootty ay ka wada shaqeeyeen 24 filim. filimkan Bazooka ayaa wuxuu yahay filim ku saabsan arrimaha argudashada, khiyaanada, kaas oo sidoo kale ku saabsan arrimaha isdabayaaca, iyadoo kale sidoo kale filimka aan la fahmi karin. Bazooka ayaa wuxuu yahay mid hogaamiye ka yahay Mammootty, waxaan soo saara ka ah Yodi Films. filimkan ayaa sidoo kale mid xiiso leh. filimkan ayaa sidoo kale waxaa kala soo muuqan doona jilayaasha Gautam Menon, Sony Wayne, Jagdish, Jivya Pillay iyo sidoo kale Aishwarya Menon, kuwaas oo door muhiim ah filimkaasi ku leh. xidigan ayaa hadlaan iska haysta kadib markii filimkan lagu dhawaaqay. ugu dambeyn daawad waxaan soo leegi doonaa filimada tiyaatarada saaran ku shalay tiyaatarada la saaray iyo sidoo kale filimka kale ee The Kerala Story, kaas iyo jimcihiisa laba lacag oo la imaada. haddaba waxaan ku hormarinaynaa filimka shalay tiyaatarada la saaray ee filimada IB 71 iyo film kale ee Kadrapathi. filimka IB 71 ayaa wuxuu la imaaday lacag hoose oo u dhaxaysa 1.75 karoor, taas oo sidoo kale filimka uu yahay film ka fiican filimada marka loo fiiriyo an action hero iyo Kutey iyo Gumra, kuwaas oo filimadaas ay la imaaday lacagaas 1.25 karoor. filimkan ayaa wuxuu ka fiican filimada Quday Hafiz Chapter 2, kaas oo filimkaas oo la imaaday isla jilaagan sameeyay 1.25 karoor. wuxuuna yahay film xidigani si fiican ku gadbay maalintiisa koowaad marka loo fiiriyo film scare, inkasta oo ahaa film kale asna tiyaatarada la saaray waa filmka Kadrapathi, kaas oo filimkaasi lacag hoos ku furmay, wuxuuna ku furmay xitaa lacag ka yara konton leeg, taas oo xitaa film khasaare dhexda ka galay. filimkan ayaa la ogeyn si socon doona isagoo maalintiisa koowaad oo lacag konton leeg ku furmay. la arki doono inkastoo film koonfur jilaa kasoo jeeda oo wado shacbeedna oosan ku lahayn qaybaha Bollywoodka, ayaa la ogeyn maalmaha Sabtida Axadda korkaca oo sameyn karo. ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filimka The Kerala Story, taas iyo lacagaha uu sameeyay jimcadiisii labaad. filimka The Kerala Story ayaa maalintii sideedaad wuxuu la yimaaday oo jimcadiisa labaad lacag gaaraysa 12.50 karoor, taas oo dhiganta 202,108 ee doolarka Mareykanka. taas oo filimkaas uu yahay filim aan gaabs lahayn markaan oo maalin ka dambayso oo la imaanaya korkac. filimkan lacagta uu sameeyay ayaa waxay la dhigantaa lacagta uu sameeyay maalintiisa Khamiista ah. filimkan ayaa wadartiisa guud markaan waxay ka dhigaysaa 89 karoor, taas oo dhiganta 1,504,147 doolarka Mareykanka. filimkan ayaa waxa uu garaacay filimada Tote Makar, asoo soo kale meel saari karo lacagaha kasii keejaan. filimkan ayaa waxaa la isku raacay in 200 karoor oo gaari karo. haddaba filimkan ayaa isla eegana lacagihiisa jimcadiisa koowaad. filimkan isbuuciiskood wuxuu la imaaday 27.50 karoor, jimcadiisa labaad filimka wuxuu la imaaday 12.50 karoor, taas oo dhiganta 202,108 doolarka Mareykanka. sida guud filimka waa 89 karoor oo nadiif ah, taas oo dhiganta 504,147 doolarka Mareykanka. intaan kusoo koobana muuqaalada warbixinada maanta aan ku qaaday dhigeen wararka ugu dambeeyay maanta laga qoray arrimaha koonfurta Bollywoodka, kuwaasoo la xiriira xanta jilaayaasha filimada soo baxay, qorshooyinka filimada tiyaatarada saaran kuwa goosgoosada heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kale asna aan la bixisay leeyihiin oo la wadaagi karteen daawadayaashan ku taxan barta tusmada filimada soo kala barta kale ee isku xogaha. dad warbixinadan ka shaleegay noo saar soo kala saxaabtiin la wadaaga
codku maasintina allah absad muqaalada daawatan kan kiis xigana fi amaan illah